إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم حريسته وها أسقرا لوغو سميي مغالada Togwajaale gaar ahaan dhinaca dawlad deegaanka Soomaalida ee Itoobiya marxuum Axmed Xasan Cawke oo ahaa suxufi weyn oo caan ka ah geyga Soomaalida dogto iyo caalamka intiisa kalaba. Aaska qaran ee loo sameeyay suxufi Axmed Xasan Cawke waxa ka soo qayb galay madaxweyne ku-xigeenka Somaliland Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Saylici. Waxa isaguna aaskaasi qaran ka soo qayb galay madaxweynaha dawlad deegaanka Soomaalida ee Itoobiya Cabdi Maxamuud Cumar, wasiiro ka tirsan xukuumadda Somaliland, mas'uuliyiinta ugu sarreysa labada xisbi mucaarid ee wadani iyo wixii salaadiin cuqaal dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan Somaliland. إن مدة الصومالية أردن كما تسمع عيما موسكو هابها كأن أسكر نص اليوم بدنا كنا نقدر كسبلان مني كسرنا إن الله صلى أسكر أمانة على القرآن كراس المنتين. markuu waxa taasina eeladii kageeriyo gaar ahaan xaaskiisii caruurtiisa kadib waxa taasina qowlan deegaanka Soomaaliya sababtoo ah taasina eeladiisa Soomaaliya iyo ku deegaanka Soomaaliya marka waxa iska cad inuu markaa aha Allah naxariistenin geeska saaxiib qaali abu ahaa walaal qaali oo aniga igu ahaa waxaan uga tacsiyeynaa ummadda Soomaaliyeed oo dhan iyo qoyskiisii iyo ehelkiisii iyo asxaabtiisii maanta hadal badan halka kama furra Axmed taariikhdiisii lama soo koobi karo qof kastaana de wuxuu baxayaa maalintii Ilaahay u qoray inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun kullayba barnaamijyada dambe iyo waqtiyo kale lahaan doonaa maanta in loo duceeyo ayuun baa bannaan inta badan waan wada shaqaynaynay inta badanna isku meel baan ku noolayn qof wanaagsan buu ahaa shakhsiyad wanaagsan buu ahaa halkan aabihii Xasan Cawke ayaa kamid ahaa budayaashii magaaladan Togwajaale marka la leeyahayna qarka iyo qarkaas waa magaalo weyn ee xuduuduma kala dhex marta marka wax la yaab lama hayno Axmed halkan ku aasno ilaa inta waan isoo joognay halkan xabaashiisa in laga qodayo malaa 300 mitir oo bari loo socdo bartoosan ku wada dhawaan ilaa in xasan naasi nin wanaagsan buu ahaa nin muumin u ahaa marka halkan iskuulka Axmed ka galay halkan uu ku dhashay marka halkii uu jeclaa iyo Ilaahay maanta ku aasay inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun والله صاحب غالية وكل ما أنا كجارهان يجتكين أنت الصومالي رجع دورنا دمان تودبا وهو عطكركي صوماليات مركب صومالي تذكر كوهاد الصومالية وحلينا مرحومك وحن إلهي يقرجينا إن حريصتي جنة وكور أبيو أحمد حسن عوكي حسن قارو بس تعسيرينية خويسكي حسن عوكي إما قشي إما دال برنامج كيلو أورنجي ريدو مقدس كبيح الجري إيا ورارك لبدا سؤال قصو عام بحي أو عام قواها يعود كيسا أنا ما قرر يوريي الصومالي كوهد الله وأن دوني إنو كدا يضو عوكي ما قرر يروتي nin wuxuu ahaa furfuran oo ummadda jeceshahay inay jeceshahay ummadda wax arkaysa maanta inta soo qalbiya dadka qaarkiisa meel Soomaali oo dhan ka baxay ninkaas dan Soomaali inta kale waxa dhan Soomaali dhex taagan oo ah marka intaas aniga ku darsanaya anigu ah Umar Shool ehelka qaraabada ka tacsiyeynaya geerida dadka wariyaha weynaa Axmed Xasan Cawke الله نحرسته مرحوم أحمد حسن عوكي وحاول لسو شقيي راديو مقدشو أو كبيري سنة كون سقال بقلبية تضباطنكي إساقو آدو قصو عام بحي وراركا قارهان تبين تعيارها يوم الددالة وحاكالو مرحوم كسو شقيي تلفزيونكي صوماليا كدب وحاول نقضي أفايانكي مدحوين محمد سياد بري إلا بربركي صوماليا مرحوم وحاول كبيري لانتا في صوماليا إذا عدا BBC دا سنة كون سقال
1996kii waxaa kale uu ka soo shaqeeyay laanta af Soomaaliga ee VOA-da telefishanka Universal Home Cable TV iyo waliba telefishanka qaranka Somaliland inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun wa Cabdirasaaq Axmed Hayaan ilka case